السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada saxaabteena qiimaha badan ee ku xidhan channelkeena Xogdoon ee YouTube. maanta barnaamijkeena Xogdoon waxaan ku gula wadaagi doonaa haddii Allah subhanahu wa ta'ala idmo qisayr oo kamida qisaska nolosha kuwaasoo dabcan aan isdhihi karo asxaabta ku xidhan channelkeena waxa ay ka faa'iidi doonaan murti ama dabcan xigmado noloshooda inta ka hadhay ay dabcan kuwaana qaadan doonaan ama dabcan noloshooda wax ka bedeli doonta. qisadan waxa la soo wariyay casri kamida cusurtii dhexe. waxa laga soo wariyay nin ugaarsada ahaa noloshiisa ay ugaarsiga ku tiirsaneed. ninkaasi waxa uu dhalay wiil yar oo aad u jeclaa, sidoo kale waxa uu lahaa ay uu ku ugaarsado oo uu jeclaa. maalin maalmaha kamida ayuu go'aan ku gaaray inuu ugaarsi aado sida caadada ahayd. eygii ayuu waxa uu uga tagay wiilka si uu xanaaneeyo, cadawga ilaaliyo. ilaan ma jiro ma haysto hooyo kale, walaal kale, cid kale oo dabcan wiilka u xanaanaysa ama u sii haysa intuu ugaarsiga ku maqan yahay. ninkii ugaarsigiisii ayuu galay. markii dabcan ugaarsigii uu soo bogay oo uu soo dhamaystay ugaarsigiisii ayuu ku soo laabtay gurigiisii. guriga markuu yimid ninkii waxa uu la kulmay arrin ka fajacisay oo dareenkiisa cirka geysay oo dabcan ku noqotay lama filaan iyo dabanahays. waxa uu arkay eygii oo afka dhiig ku leh, isla markaana taagan afaafka hore ee guriga, ganjeelka albaabka hore guriga laga soo gala taagan. ninkii isla markiiba waxa uu ku fakiray waxa inteena badan aan ku fakari lahayn ama aan ku fakareyno oo ah eygu inuu ka taqallusay oo dilay oo cunay wiilka yarka ahaa. eygii ayuu waxa uu ku dhuftay 5 xabadood isaga oo aan hubsan sidii ay wax u jiraan. waxa uu ortay gudaha si uu bal u helo inta ka hartay cadka yarka ah ee wiilka ka hadhay si uu u helo xabaalahana ugu daro, qabuuraha u geeyo. gudaha markuu galay wuxuu arkay arrin kale oo lama filaan ku noqotay ninkii iyo dabcan shalayto aan dhammaan. waxa uu arkay mas aad u weyn oo yaala wiilka yarka qolkii uu ku ogaa iridiisa. maskaas oo maantoo dhan intii uu ka maqnaa ay eyga halkaas isku haysteen, halkaas ku dagaalamayeen. hardan badan kadib uu masku halkaas ku nafbaxay. eyguna uu dabcan wiilka ka celinayay oo eygu uu lamintii guusha yeeshay. wiilkiina uu halkaas asagoo nabad qaba oo caafimaad qaba si nabdoon ugu ciyaarayo. isla markiiba ninkii waxa uu ogaaday qaladka uu galay iyo inay ka hoos baxday. haddaba xigmadda sheekada kugu soo qaatay waxay tahay, imise ayaad isdhihi kartaa walaal macaan, imise qof ayaa jirta oo malo lagu dilo, tuhun lagu dilo, haddana wax cadaalada aan helin. waxaa kale oo aan kugula dardaarmayaa, weligaa ha xukumin waxa ay indhahaagu qabtaan adigoon ogeyn ama aan ka salgaarin xaqiiqada ka dambaysa ama taaladaha gadaashiisa. intaas waa dardaarankayga. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. fadlan waxaan kaa codsanayaa walaal macaan, haddii aad ka heshay videoga inaad like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. sidoo kale waxaan kaa codsanayaa inaad ku soo biirtid channelkeena oo aad ka mid noqotid asxaabta ku xidhan. waad ku mahadsan tahay la joogaaga.